nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay islaan reer banu israa'iila nebi muuse markii uu hijrooday ee uu ka baxay fircoon iyo meeshii uu maamulayey ee ay safarka ahaayeen ayay waddadii ka lumeen deetana way soo noqdaan waddadii bay heli kari waayeen lumistaa ku badatay dabeetana waxay idhaahdeen muuse u istaag raggii la socdaa waxay idhaahdeen ballan baa jira nebi yuusuf uu reer banu israa'iil ka qaaday oo aynan fulinin waxaynu la lulumaynaa waa ballankii yuusuf baan u malaynaynaa waa maxay buu yidhi waxay dhahay nebi yuusuf wuxuu yidhi reer banu israa'iilow haddaa meeshaa ka baxdaan maydkayga ha kaga tegina iga qaada xabaashayda qodoo iga qaada anigana markaa ballankaasuu naga qaaday bay idhahdeen nebi yuusuf markuu geeriyoonayey marka waxaynu la lumaynaa baan filaynaa ballankii yuusuf baynu khilaafnaye nebi yuusuf aan raadinno yaa garanaya baa la yidhi xabaashii nebi yuusuf waxaa la yidhi habar unbaa wax nooloo imika garanaya hal islaanaba hadhay habartaasaa hadhay habarta igu yeedha buu yidhi habartii baa loo yeedhay habartii baa waxaa la yidhi waxaan rabnaa inaadna tusto buu muuse leeyahay meesha xabaashii nebi yuusuf waxay tidhi xukumkayga ha laysiiyo oo waa maxay inaan jannada kugu raaco jannada kula gala bay tidhi nebi muusew waa habar janno doonaysaa haddii aniga intaa haddaan layga rabo aniguna waxaan rabaa maxay jannaan doonaya hankeedu halkaasuu taagan yihi dabeetana xadiidku wuxuu tilmaamayaa muuse arrintu ku yaro weynaatay ilaahay baa u waxyooday muuse waxaa la yidhi xukumkeeda sii islaantaa xukumkeeda sii waad leedahay baa la yidhi ballankaa laguu qaad inaad nebi muuse jannada u raacdid ee tilmaam waxay tidhi nawadiyo waxay keentay meel mustanqaca meel biyo fadhiisiyo qudhunah ayay keentay waxay tidhi meesha tan biyaa ka dhura meeshii baa biyaa laga dhuray markii meeshii la engejiyey waxay tidhi halkaa qodo dabeetana meeshii baa la qoday waa laga soo saaray dabeetana safarkii bay bilaabeen taabuutii nebi yuusufna waa qaateen waddadii unbaa ilaahay toobiye uga dhigay markaasiyo reer banu israa'iil sidii bay ku galbadeen oo ilaahay ninkii fircoon ahaa iyo kooxdiisii uu ku dhaafiyey oo uu soo gaadhi waayey nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkii uu yidhi sal ee wuxuu hungurigiisu noqday neef geela iyo 30 adhi ee waxoogaa adhiyo uu maalo ayuu wuxuu leeyahay cajastum an takuunuu midla cajuusi bani israa'iil war ma reer banu israa'iil habartoodii miyaa ka liidataan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam